wiil dhalinyaro ah oo jira 16 sano ayaa hooyadii wuxuu ku yidhi hooyo 20 sano haddaan gaaro maxaad ii soo hadiyeynaysaa maxaa si gooniya ii siinaysaa da'da noocaasa markaan gaaro hooyadii ayaa ku jawaabtay waxay tiri wiilkaygiyo waqtigu inuu dheer yahay kama suulin hadalkaas markay ku tiri waa la kala aamusay da'diisu markay maraysay 19 sano ayuu maalin maalmaha kamid ah xanuunsaday kadibna hooyadiis ayaa isbitaalka u qaaday oo isbitaalka ayay geysay si loo dabiibo markii la baaray ayaa dhakhtarkii wuxuu yidhi wiilkaada xagga maskaxda iyo qalbiga ayuu ka xanuunsan yahay kadib hooyadii way soo baxdo way u gashay qolkii baaritaanka iyadoo wiilkeeda doonaysa inay aragto kadib wiilkii baa yidhi hooyo muxuu kugu yidhi ninka dhakhtarka ah miyaan dhiman doonaa ma sidaasuu ku yidhi hooyadii waa murugooto ilin baa soo dhaaftay ugu dambayntii isbitaalkay ka soo baxeen gurigii bay soo aadeen wuu caafimaaday oo ilaahay caafimaad ayuu siiyey markuu gaaray da'da 20 ayuu maalin maalmaha ka mid ah wuxuu ku arkay sariirtiisa waraaq dul saaran hooyadiis baa waraaqda oga tagtay waraaqda waxaa ku qornaa wiilkaygiiyo waxaad xasuusataa maalinta aad ugu tiri hooyo 20 sano markaan gaaro maxaad isiin doontaa wiilkaygiiyo arrintaas maalinta ay ugu tiri ma hilmaamin ee waxaa ogaataa wiilkaygiiyo qalbigayga inaan kuu hibeeyo oo ku siiyey dadka ka warramaya jacayl noocuu doonaba ha noqdo jacaylkaad ka warramaysaan waa mid nooceeya ma hilmaanteen kan hooyooyinka qalbiga hooyada iyo nolosha hooyadu waa kuu muhiim qof yahow hadday maanta hooyada nooshahay ilaahay ku shukri waxaad haysaa albaab aad u wanaagsan ee u xisaan samee haddaad xoogaa ku adag tahayna iska daa camalkaas waayo waa hooyo waa noloshaadii dhammaan weeye qofka waayey ayaa maanta la weydiinayaa hooyo ka ajirso oo ka qanimayso ka faa'iidayso nolosheeda waayo maalin bay ku dhaafi doontaa ama adigu aad dhaafi doontaa saad ugu kulantaan jannaatulfirdows maanta ka faa'iidayso ilaahay idinkiis ilaahay ha u dambi dhaafo hooyooyinka nool kuwii dhintayna allaha u naxariisto oo jannadiisa ha geliyo dhammaantiin aamiin dhahaya aamiin aamiin haddaad dhammaysatay dhegaysiga casharka kan fikirkaada ka soo bixi kelmad yar oo kooban oo hooyo qiimaheeda ku cabiraysid iyo meeshay kaa joogtana soo qor adoo ku daraya hooyo ducaa u ducaynaysid intaas waxaa laga yaabaa adinka iyo annagaba inay u noqoto khayr fur insha allah